halkani waa Soomaaliya. xeebta Soomaaliya waxa ay ku dheerarsan tahay in ka badan 3300 oo kiiloomitir, taasoo u dhigmata 2100 oo mayl oo ku teedsan badweynta Hindiya. Biyaha dalka ayaa la rumaysan yahay inay hayaan maraakiib badan oo burburtay, kuwaas oo qaarkood soo jireen ahaayeen dhowr qarnina ku beegnaayeen. burbursanaanta markabku waxa ay soo bandhigtaa muuqaal ku saabsan taariikhda badda ee gobolka iyo suurtagalnimada hanti aan la ogeyn oo ku duugan hoosteeda. Dokumentigu waxa uu si qoto dheer uga hadli karaa ama uu go'aan fuli karaa dadaalka cilmi baarayaasha qadiimiga ah ee biyaha hoostooda si ay u sahmiyaan oo u diiwaangeliyaan burburkan. duulaanka boodacadbadeeda Soomaalida ayaa ah arrin muhiim ah oo mudan in lagu baaro filim documentary. kooxda burcadbadeeda Soomaalida ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya ayaa soo jiitay indhaha caalamka, waxaana halis weyn ku yihiin ammaanka badda ee gobolka. caalamka oo ay ku jiraan ciidamada badda ee wadamada kala duwan ayaa bilaabay howlgallo lagula dagaalamayay burcadbadeeda. dadaaladaas waxaa lagu lug lahaa roondo la isku dabariday oo ciidamada baddu galbinayeen. wada shaqaynta ka dhaxaysa ciidamada badda caalamiga ah iyo warshadaha maraakiibta ayaa horseeday inay hoos u dhigaan weeraradii burcadbadeedu ay ku guuleystay sanadii xigay.